Premier League ku bilaabi doona balil kulamadii ugu horeeyay la ciyaaray xisaab badnaa hadii aan lahayn Arsenal iyo kulamadii xigay Chelsea City iyo Haaland bandhigiisa adoo israacsanaya kooxihii waaweyn toddobaadkan intooda badan qaarna taaka loo dhigay qaar way guuleysteen Arsenal ku bilaabi doona iyo kulamadii kale Arsenal kulli iyada lagu daafuray kulankii ugu horeeyay toddobaadkan Sabtidii Brighton ay ku soo dhaweysay Emirates ciyaartana sidii la filayay maysan noqon Arsenal bareej gashay labadii kulan ay hore Arsenal way soo badisay laakiin kulankan taaka loo dhigay Brighton waxay kamid yahay kooxihii 100% rikoorka fiican ku socday seasonkan macalinkooda da'yarka iyaga buu isfahmeen Manchester ay gool ka soo gaareen kulankii ugu toddobaadkii la soo dhaafay waatii laba gool iyo gool kaga badiyeen Arsenal way u dhaweyd guusha 100% laakiin ciyaarta Kambidi markii hal eber ay noqotay oo Kai Havertz goolka u dhaliyay second half-kii markala soo laabtay oo kaarka gaduudan qaatay Declan Rice ciyaarta wax weyn ay iska bedeshay Arsenal waa laga awood fiicnaa fursadaha kubadda heshashada Brighton waxay noqotay kooxdii ugu horeysay intii 2023 ee Arsenal oo Emirates ku dheelayso kubadda ka haysata 63% marka Man City sidaa sameysay marka Brighton dabyar mashideenin sanadkan waxaad moodaa in ay hami badan ay tiigsanayaan waa kooxda labaad ee lacagta ugu badan suuqa kala iibsiga galisay 9 ciyaartoy cusub macalinka keensaday macalinka cusub yahay waa 32 sano jir sida darteed marka Brighton goalkeeper baraha ay dhaliyeen waxay ku sigteenba inay goolka guusha ay heleen laakiin Arsenal faa'iido ku lahayd inay goolkaas baraha helaan dad badan ayaa la yaabay roosada la siiyay Declan Rice laakiin markii dib loogu laabtay iyo qodobadii FA-ga iyo ay soo tiigsadeen roosadaas ganaxiisa uu qaatay second yellow uu qaatay kubadda loo darbeeyay kubadda hadii san dhaqaaqeenin oo kubadda ay taagan tahay hadaadan darbeenin hadaad darbeysid second yellow waa leedahay foul waxa yaalay kubadda marka foul marka kulli Arsenal nasiiba kuleed inay halkaas dhibac ay ka hesho oo ay natiijadaasi barbaraha ay ku kala baxaan marka Man City ayaa sidoo kale dheeshay Man City waati 3 gool iyo gool kaga badiyeen waxa laga yaaban yahay laakiin Man City guusheeda xagga iska dhig lama haysan karo oo week walbaba 3 iyo 4 ay ku badinayaan toddobaadkii la soo dhaafay 3 gool iyo gool natiijo noocan waxay kaga badiyeen kooxda Ipswich Town oo hat-trick u dhaliyay Haaland toddobaadkan sidoo kale isla natiijadii kale uu ku celiyay Haaland hat-trick u dhaliyay marka 7 gool la maraya Man City oo 9 gool dhaliyay 3 kulan 7 kamid waxa dhaliyay Haaland marka Man City oo dhanba 2 gool dhaliyay Haaland 7 kamid dhaliyay marka waxa ogaan kartaa Haaland in sanadkii labaad ama saddexaad ba uu ordayay inuu ku guuleysto Golden Boot-ka horyaalka dalka Ingiriiska kabta dahabka Man City horyaalkii ugu cadcadahay cid ka awood badan ma jirto marka iyada laga reebo 19 kale isku qaanadii ku jiraan inkastoo ay sii kala hooseeyaan laakiin waxa moodaa Man City waa another level way farqiga kaliya horyaalka Premier League way marka Haaland maalin kasta gool ma dhalin karaa oo dhalin karaa waa dhameystir ciyaartoy fiican oo haysta kubada fiican ay dheelayaan Man City West Ham kooxaha waxay kamid tahay average-ka oo adag marka kulli waxaan leenahay horyaalka Man City ani u maleemayo in sanadkii lixaad uu xiriir cid ka celin karta inay jiri doonto ama shanaadba arki doona balil kulamo kale la sii ciyaaray xisaab badnaa maalintii 8 ku ahayn hadii kulamada jira Chelsea oo kale taaka loo dhigay Crystal Palace oo gool badan laga soo dhaliyay kulamadii hore iyo ciyaartii weyneed Ingiriiska ka waran horta Chelsea dad badan ay isweydiinayeen Chelsea maxaa ku dhacay Chelsea ma macnaha ma sii wadi karto toddobaadkii hore 6 gool ay ku badiyeen 2 kulan ka dambeysay kooxda Zarved ka dhisan Switzerland oo ay la ciyaareen Conference League kulamadii qualification-ka 2 gool iyo gool lagu badiyay ninkii Madueke oo hat-trick dhaliyay kulankaas jaanis badan oo khasaari waa la bedelay shalay loo yimid waa kulankii labaad Stamford Bridge ay ku dheelaan kulankii City waxa la islahaa City koox weyn waa Sanja lagu soo bandhigay garoonka oo aad loo soo dhaweeyay maxay u soo koobiyay waayeen kulankii Wolverhampton Wolves iyo Crystal Palace Wolves adkeyd oo away from home ahayd oo gurigooda Wolves ahayd oo ay ku adkay Chelsea in halkaas ku soo badiso laakiin Crystal Palace oo 13 kulan ugu dambeysay labadan kooxood isarkaan bareej xataa ma dhicin oo 13 kulan ugu dambeysay Chelsea badinaysa home iyo away ba Chelsea badinaysa laakiin shalay taaka loo dhigay dibacdii ugu horeysay horyaalka hesha Crystal Palace xil ciyaareedkan labadii kulan hore waa laga badiyay Chelsea hadda 4 dhibcood meesha ay la joogtaa Madueke bandhigiisa ma xumeen macalinka laakiin Enzo Maresca waxa ay ga muuqata isbedel hadda inuu sameynayo line up كو يتبر رسمي أي عيارتي بدله واي كوحدة ويبضتاي هذا إن كوكي لمان يجني جدالك إما دانا لو قرشي لكن مدري وحكومة بدله باسكي بدر نيتو أنت كله وحبك كمان بدله مركا اسفهم
iyo wax yaraa ka dhiman 10 kulan hal ciyaaro hay sii fahmaan sanad ku sii wado shaqo adaga u taalo hadda kulli fasaxii caalamiga la aaday kadib baa isugu soo laaban doonaa ciyaartooyda way badan yihiin marka waxaan aaminsanahay Chelsea hadii saa ay ku sii socoto macalinka uu isbeddelka badan u dhaafo line upka rasmiga uu ku dadaalo golayaha kaliya iska bedelo daafaca uu fiican yahay qadka dhexe labada garab Madueke garab uu geeyay Balmer Boskiisa diisho uu geeyay afka horena waxa uu geeyay Jackson Mohamed Jackson gool uu shalay dhaliyay marka anigu waxaan aaminsanahay Chelsea saas kula qabsato kulli top 4 top 5 meelaas inay season ku dhamaysan doonaa waa macquul laakiin toddobaadkan kulli ugu weynaa indhaha lagu hayo wuxuu ahaa kulankii derbiga horyaalka dalka Ingiriiska laba macalin oo horyaalka Holland saaxiibo ku ahaa ayaa derbigoodii soo minguuriyay Ingiriiska soo wada guuriyay Slot iyo sidoo kalena iyo Den Haag laakiin macalinna wuxuu u dheelayay geesinimo iyo inuu guul helo kooxdiisa 100% waa kooxda kaliya Europe ilaa hadda aan wax gool laga dhalin shanta horyaal iyo waaweyn ee Europe kooxda Liverpool waa kooxda ugu badan ee shuruudka ugu badan sameysay waa kooxda fursadaha ugu badan sameysay record walba ee koox sameyn karta iyaga hadda haysta midna waa kooxda ugu fiican hadda horyaalka Ingiriiska waayo inaad Old Trafford imaato horyaalka bilow ah adigoo suuqa iibsiga wax badan gelin aad u maato koox 200 milyan suuqa iibsiga gelisay sanadkii hore 4 dhibcood ka qaadatay inaad hadana gurigooda ku baashaasho oo 3 gool aad ka dhaliso gool kale aad ku sirto 5 iyo 6 aad gaarsiin kartay waxaan dhihi karaa waa daciifnimada Den Haag iyo maamulka Man United oo iska fiirsanay macnaha ninkan sidoo kooxda u bahdiloy oo iska daawanay kulli maamulkii Man United way arkayaan qaladaadka iyo duleelada Casemiro xaaladda loo soo jeediyay nin waxa lagu yiri kubadda cagta ka tag intaysan iyada ka tagin waayo Casemiro ma aha Casemiro aan qiinay ma aha ee burburihii Real Madrid ku naqinay ma aha Casemiro eejo noqday halkan lacag u yimid basiis iska dadalnaya war Sacuudiga Al-Nassr meelaas iska aado Casemiro kubadda hadda kadib ma dagaalami karo ciyaartu wax ma ka qaadan karto Gavin Page iyo ciyaartu ka yara wax ka dafoosa mar hatta Casemiro marka wax laga dafo soo laabin jirayo faawlada gali jiray ma aha marka Man United inay ka tashtaan waaye Casemiro laba qalad oo Casemiro sameeyaa labada gool qaybtii koowaad Diaz loogu dhaliyay kii saddexaadna Kevin Mono qaladka iska lahaa marka Man United hadda 3 kulan laba gool daray qabaan goolan waa laga dhaliyay 3 laga dhaliyay 5 gool laga dhaliyay marka aan waxaan qabaa Man United maamulka inay ku sii fiirsadaan ma aha 2 sano contract la siiyay ninkan Den Haag ma aha ninkii samata bixin lahaa maalmahan waati boota ku socoto ninkan Slot waa nin aqli badan waaye aniga waxaan ka arkay Arne Slot macallin wuxuu u yimid koox dhisan oo yimid oo Chiesa kaliya hadda ku soo daray hal gool haye laakiin goolayaas wuxuu imaan doonaa sanadka 2025 Mohamed Salah waxa leedahay wuxuu sugayay inuu club oo kooxda ka tago Mohamed Salah aan qiilay 2020 ayaa hadda arkeenaaba ama inuu dhali inuu caawiyo wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee 7 kulan oo xiriira consecutive Old Trafford gool isaga dhalinay waaba hoomkeyga labaad uu taagay halkan daa'imaadaba waa isaga shubanaa marka Onana laga soo bilaabo Digeya qof uu cafiyay malaha Mohamed Salah wuxuu ahaa ciyaartoy aad u fiican tan kale la yaab kale waxay tahay war gool lagu leeyahay war sheekadan maalin kasta labadan sano aad wadid daafac ku bedel dalaadan bedela Miguayan keena micna gool afraad laga dhaliya isbedelays waxa Garnaja bedela oo halkeen meesha ku jira Bruno marka wax dhanba waa frustration waaye macalinka waxa laga yaabaya 2 sano inuu hal leen ab sameesto waa weysay yahay ma ka weynin marka Man United wixii u qorantay la hesho mooyee wax kale ma helin هذا فليل بريمير ليج كل ما سأقوله وينا أو تزوات كان هذا الهين تقوينه هيدا كجود بهنا